الرحمن الرحيم gudoomiyaha maamulka iyo maaliyadda ee dawladda hoose xamar ee gobolka Banaadir agaasimaha guud ee waxbarashada ee dawladda hoose xamar ee gobolka Banaadir gudoomiyaha ururka haweenka maamulka gobolka Banaadir agaasimayaasha inta nagala joogtay dawladda hoose xamar la taliyaha ee dadka magaalada dhammaan saxaafadda waxaa idinku salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacdi salaan waxaa farxad noo ah maanta oo ah maalintii afraad ee imtixaanaadkii dugsiyadii galaaska 8aad ee dugsiga dhexe inuu noo soo afjarmay si wanaagsan jawi wanaagsan alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay nagu soo nabeeyay aadaan ugu mahadcelinaa dhammaan inta gacanta ka geysatay ee u horeeyo wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiir gowdax wasiir dawlaha wasiir ku-xigeenka dhammaan mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada waxaan kaloo u mahadcelinaa agaasimaha guud ee wasaaradda dawladda hoose xamar agaasime cabdiraxmaan iyo inta la shaqeysaba sida wanaagsan oo loo soo diyaariyay imtixaanka loogu xafiday loo ilaaliyay ciidamada booliiska oo qayb libaax ka qaatay in ardayda si nabad ah ee ugu dhamaaday imtixaanka la badbaadiyay imtixaanka aan qashkiisi iyo wax ka baxsan ama dhibaato ah aysan ka dhicin imtixaankaaniti si sharaf leh qurux badan ee ku soo dhamaatay ardayda ay ku qanacsan yihiin wax cabasho aysan jirin wax dhibaato aysan jirin si nabad ah ilaahay noogu soo dhameeyay Allah subhanahu wa ta'ala noogu soo dhameeyay ayaan ku mahadcelinayna hadaan maamulka gobolka Banaadir waa markii ugu horeysay sanadkii ugu horeysay oo maamulka si madax bannaan oo imtixaanka dugsiga dhexe oo ku qaado ee waxbarashadii si wanaagsan ee wasaaradda ee nagala shaqeeyeen inaan annaga maamulno dawlad ahaan oo dawlad hoose ahaan shaqadii noo lahayn ama noo idmaneed inay noo madax banneeyeen aadaan ugu mahadcelinaa wasiirka oo haliyay u istaagay ah iyo golaha xukuumadda oo hogaaminaya wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali qeere oo ahaa in gobolka Banaadir loo madax banneeyo waxyaalaha asaasiga ah ay maamuli karaan ama dawladaha hoose ee maamulaan in maanta tan ay kow ka tahay waxbarashadii dawladda hoose xamar inay iyada maamusho aadaan ugu mahadcelinaa wasaaraha xukuumadda waxaan kaloo u mahadcelinaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo u istaagay manhajkii afka Soomaaliga inay ardayda ay ku qaataan waxbarashada iyadana hadda ay ku baxayso manhajkeeni afka Soomaaliga oo madaxweynaha uu hirgeliyay taasina ay tahay go'aan masiiri ah in laga qaato ardayga wuxuu yahay iyo lahjada uu leeyahay inuu asaga iyo waxbarashadiisa ay ku baxdo waa iyadana madaxweynaha ayaa iskala mahadaaseeti aad iyo aadan ugu mahadcelinaa qof kasto muwaadin Soomaaliyeed oo u istaagay maanta inay horgasho waxbarashada dawladda hoose xamar annagana maamul ahaan waxaa naga go'an in ardayda Soomaaliyeed si lacag la'aan ah ay ku tagaan iskuulaadka sidaad arkaysaan 22 iskuul hadda lacag la'aan ah kuwa 6 iskuulna dawladda hoose ayaa hadda gacanta ku hayso iyada maamusho ee ka mid tahay iskuulaadka 22 iskuul ee dawladda hayso ma mid dawladda hoose u gaaray iyada ay ka bixisa ardayda ayaa jiro macallimiinta marka annaga waxaan u wada istaagi doonaa in ardayda Soomaaliyeed ama caruurteena Soomaaliyeed ay waxbarashada wada aadaan aqoontooda aan ku dadaalno intii Ilaahay karankeena uu na gaarsiiyo qof kasto muwaadin Soomaaliyeedna loogu baahan yahay waalidiinta mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kula talin lahaa inay awlaadda ay geeyaan iskuulka cunuga aqoontiisa meesha kaliya beeska kaliya cunuga laga barbaariyo cunuga markaa barbaarisa haduusan aqoon lahayn wax badan ay ka dhiman noloshiisa ama korintiisa waalidiinta waxaan ka codsanaynaa inay ilmahoodii ay geeyaan iskuulka annagana waxaan ballan qaadaynaa in la garab istaagi doono wax walba lagu fududeyn karo waxbarashada ubadka Soomaaliyeed inta u fariisatay imtixaanka ee 27,000 ku dhawaad arday ah sanadkan u fariistay galaaska 8aad si nabad ah isku wada darka 32,000 waa gobolka Banaadir laakiin ardayda u fadhiisatay waa ku dhawaad 27,000 waad arki kartaan baaxadda u dhaxaysa waxbarashada caasimadda inay caasimadda tahay caasimadda dalka hooyo ee cid walba Soomaaliya degan tahay tirada degan ee ka badan yihiin tirada gobolada ay joogaan waxaan rajaynaynaa marka annagoo taas og inaan mas'uuliyad gaar ah iska sii saarno haddana waa rajaynaynaa 100% gudoomiyaha maamulka iyo maaliyadda oo wax walba imtixaanaadkan lagu fududeynayo awood buuxda siiyay isaga iyo duqa magaalada Muqdisho gudoomiye Cumar oo ahaa haliyay mar walba u taagnaa badbaadinta dadka Soomaaliyeed asagana ahmiyad gaar oo siiyay markaan u jeedin aniga agaasimahayga inay ahmiyad la siiyo ardayda Soomaaliyeed sidii wax loogu qabala ama waxbarashadii dawladda hoose ee la wareegay
aad iyo aadan ugu mahad celinaa asaga iyo gudoomiyaha maamulka maaliyadda iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho haddaan isku wada duubnaano annaga iyo bulshadeena wax badan ayaan qabsan karnaa maamulka gobolka banaadir sidaad ogtihiinba waxaa diyaar u ah inuu wax walba aasaasi ah ay bulshada u baahan yihiin inuu kaalin weyn ka qaato in wasaaradaha dalkana si wanaagsan aan kula shaqeyno wax walba aasaasiga ah inaan annaga maamuli karno aan aqoonteedana leenahay kartideedana leenahay maamul dhisanna aan nahay waxaan rajaynaa caafimaadka dalkana sidaas oo kale ayaan isagana rabnaa hadduu ilaah yiraahdo dadka Soomaaliya inay helaan caafimaad lacag la'aan madaxda qaranka oo u horeeya madaxweynaha iyo wasaarahan ee ka go'an tahay qofka muwaadinka inuu xaqiisa helo annagana waxaa diyaar u nahay inaan ka shaqeyno arrimahaasiti aad iyo aad ugu mahad celinaa hadda meesha aan taagana waa jaamacadda ummadda Soomaaliyeed qaybteeda geer waa meesha ugu weyn ee ugu ardayda badan waxaa ku jirto 9,962 arday ayaa meeshan kaliya fariisatay jaamacaddaaniiti goobaha lagu galay imtixaanaadka gobolka banaadir oo dhan waa 72 goobood ayaa lagu galay 17 degme gobolka banaadir ay ka kooban tahay iyo labada deegaanba intaas ay ardaydu ku wada galeen intaas si nabad ayay ku soo dhamaatay ardaydii loogu talagalay ayaa soo xaadirtay si wanaagsan ay ku dhamaatay 7 maado loogu talagalayna si sharaf leh wanaag leh ee ardayda ugu bada baxday wax dhibaato ah ama caqabad ah ama ardayda Soomaaliyeed ama mas'uuliyadda naga saarnaa aysan la soo gaarin ilaahay ma hadaas kale inta ka shaqeysay u horeeyay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada gobolka banaadir dhamaantiin waa idin salaameena saxaafadana waxaan rajaynaynaa insha Allah iyadana kaalin weyn ayay ka qaadatay arimahan waxbarashada oo mar walba ay taagnaan jireen xog walba waxbarashada iyo wanaagiisana ay gudbin jireen aadan idinkaga mahad celinaa shaqada qaranka aad u haysaan guuleysta ayaa idin leeyahay